qaybtii koowaad ee sheekadii la magac-baxday sirtii jaceylkeygii ayaa waxay inoo joogtay. Kolkii aan bilaabay heerka koowaad ee jaamacadda, waxaan isbaranay dhalinyaro isugu jira hablo iyo wiilal. Qaybta labaad ee sheekadase waxay ku bilaabanaysaa sida tan. Deeq waxa uu noqday wiilka kaliya ee aan waqtiga waxbarashada aan si gaar ah iskula qaadano inta aan jaamacadda joogno iyo waliba xilliyada aanan joogin goobteena waxbarashada. Isfahamkeena dhex maray aniga iyo Deeq waxa uu noqday mid gabi ahaanba laga ogaaday goobteena waxbarashada iyo xaafadaha aan kala degannahay. Kolkii ay hadalhaynta sheekadeena ay noqotay mid sii ballaaratay, ayaa Deeq waxa uu go'aan ku gaaray inaan kula weyn isugu imaano sida ugu dhaqsiyaha badan. Waa galab Jimco ah oo uu jawigu ahaa mid degan. Waxaan ku ballanay meel beer ah oo gurigayga ku taalo, isla markaana loogu talagalay sheekada iyo nasiinada. Galabtaasi waxaan isku diyaariyay si uusan weligay iiga baran Deeq, ileen aniguba waxaan islahaa maanta Jaanis ayaa ku heesaa oo waxa qalbigaada ku jira ayaad u sheegan doontaa. Laakiinse maxaa dhacay? Abbaaro 4tii galabnimo ayuu ii yimid Deeq. Abbaay Deeqsan ii waran. Abbow Deeq, waan kuu ladanahay. Sidee tahay adigu? Aad baan u faraxsanahay inaan galabta kulankaan aan isku imaano. Abbaayo, aniguba dhab ahaantii aad ayaan u faraxsanahay. Sheeko iyo kaftan kadib, Deeq waxa uu yiri, Abbaayo Deeqsan, anigu waxaan rabaa inaan arrin muhiim ah kuu sheego. Kolkaasee Deeqsan isla hadal gashay. Alla tolow, ma waxa uu idhihi rabaa waan ku jeclahay, maye armuu guur iga dalban rabaa. Intii ay Deeqsan isla hadalka ku jirtay ayaa mar qura waxa ay ku soo baraarugtay iyadoo Deeq uu gacanta ka hayo. Wuxuuna ku yiri, Deeqsan, maxaa kugu dhacay? Waxa jira ii sheeg Abbaayo. Miyaadan kulankaani ku faraxsaneen mise wax baa jiro oo aad iga qarinayso? Inta ay qosalaan jirin iska raadisay ayay tiri, may Abboowe, wax dhiba ma jiraan. Waan faraxsanahay. Ima arkaysid miyaa? Haa, anigu waan faraxsanahay. Deeqsan, waxaad moodaa inaa wax iga qarinayso Abbaayo. Bal isdeji, neeftuurka faraha badan iska daay. Anigu waxaan nahay Deeq un, qof kale ha ii maleenin. intaas ay noo joogto daawadayaal qaybtii labaad ee sheekadii sirtii jaceylkeygii.